dhalinyarada Janaale waxay aad u jecel yihiin isdhexgalka ciyaar dhaqameedyada sportiska dhammaan ciyaaraha kala duwan ee reer Janaale caanka ku yihiin inay nabad ay ku helaan hadda waxaan joognaa garoonka Qumbaaley oo hadda ciyaar ku socoto Qumbaaley iyo Horseed hadda ay ciyaartooda ay socoto ciyaartaasi hadda waxay kala marayso ever waxay ka mid tahay isdhexgalka bulshada dhalinyarta oo ku nool deegaanka Janaale hore ma haysanin oo balooni iyo isdhexgal mid dhalinyarada maamulka ka hor laakiin had markuu maamulkan oo daahfureen oo aan bilaabno inaan baloonidii iyo garoonkan ciyaar ka dhigno kadib hadda waxaan ka codsanaynaa maamulka deegaanka Janaale ugu horeeyay gudoomiyaha deegaanka Janaale inaan helno garoon inaan loo dhiso qalabka sportiska haddii lahaayeen balooniyaasha fulaanadaha dharkii oo dhammaystiran oo ciyaartooyda ay degmooyinka kale u nool yihiin oo kale ama macnaa saa ugu mid noqon degmooyinka kale Janaale waxay aanay ka tahay ciyaarahan sportiska waxay kaloo aanay ka tahay sportiska iyo shiribka waxaan rabnaa hadda inay dib u soo noqdaan hadday mar dawladda federaalka Soomaaliya noo imaatay iyo maamulka degmada Janaale waxaan rabnaa inay soo celiyaan bilicdii hore ay Janaale lagu yaqaan jiray ugu horeyso ciyaarihii baloonada oo hore macnaha tuulooyinka dhan waxay ku ciyaari jireen koob dhigi jir sida oo in la marti geliyo sida marko shalambood goolmareer ilaa iyo golweyn in baloonadaasi hadda dib loo soo celiyo si aan hadda ugu mid noqono dhalinyarta kale oo saan ugu casuuno Janaale gudaheeda garoonka Janaale in loo dhiso in loo dhigo roogii casriga oo baloonka in loo dhigo haddana solarkii cadceedda haddana loo shaqeeyeen ebilka hor 2 saac iyo bar 2 saac 3 saac guriyasha lagu xaroo jir laakiin hadda haweenkii ilaa 6 saac ilaa 5 saac waxaan taaganahay laamiyada banaanka waxaa kaloo shaahiyayni sidayni hore u socdaan sidayni hore laamiga aan u sheekaysanayna maamulka deegaanka Janaale waxaan ka rajaynaynaa in loo dhiso shaqo abuur horta hadda maadaama shaqo abuur ay jirin inaan helno shaqo abuur in loo shaqo abuuro in loo kabo aday takabayaasha in loo kabo waxbarasho la'aan isbitaalkii degmada iyo dugsiyaashii iyo wax soo saarka beeraha in dib loo soo celiyo